رمضان كريم بوست فلوج isku soo dhawaada Daarusalaam City inshaada macalinku ah soo raacno halkan laamiga dheerka u jeedaan waa laamiga Daarusalaam 7 kiiloomitir wuxuu u jiraa garoonka weyn ee Saad Muqdisho xaafaddu waa blog waa kana qaybtan waa qaybta mangoga waa u jeedin ma sha Allah aad iyo aad u qurux badan tahay xaafadan Daarusalaam xaafadaha kale ee magaalada Muqdisho aad iyo aad ay ugu duwan tahay maxaa yeelay waa xaafad isku xiran oo blog qayb kala ah markaan soo indhay badigooda waxa u badan dad qurba joog ah oo wadanka dibadiisa ka imaaday ma sha Allah aad iyo aad u qurux badan tahay videogan waxa waay video aan inaba caadi aan waqti aan ku bixiyay daawasho wacan hawa qayb walba waan tagi doonaa insha Allah inta videogan aad daawanaysid please like ta ka xasdin sina daawo qaybta labaad waa ujeedaan waa qaybta greenka cagaarka qayb walbana waxay leedahay albaab laga soo galo ganjeel weyn ah sida kii hore arkaysan kana aragteen ma sha Allah sartaan iyo dhismahan san u qurux badan Daarusalaam waxa dhistay Soomaali isku tagtay ganacsato iyo qurba joog iyo dad isku tayaa dhisteen oo dalkooda jecel kuna faana wadan walba waxa dhistay dadkiisa dal walbana waxa dhistay dadkiisa marka aan u soo jeesano dalkeena waa hodan barwaaqisana leenahay saan u qurux badan wax badan aan ka sameeysan karnaa aan u soo jeesano nin walba wadanka wax ku dhama male guys Rwanda caasimadda Kigali hadii ay haysato Vision City xaafad aad u qurux badan ilooyin Soomaaliya inay haysato qaasatan Muqdisho Daarusalaam City sidoo kale qaybta saddexaad waa u jeedaan waa guryo isla siman aad u qurux badan hawaaye Daarusalaam marka imaadid waxa qiiro waxa ku galayso wadanka inaba caadi ahaan ma sha Allah u jeedaan amazing wallahi u jeedaan astaanta Daarusalaam gada deegaan ha gadan guri xafiiskeeda waaye waa meelaha guryaha laga kireysto ama laga iibsado ma sha kaliya dhismo kuma eko waa u jeedaan dhismo cusub oo hadda la dhisayo waa arki kartaan ma sha Allah hal iyo laba maahan dhismooyin badan oo hadda meesha laga dhisayo badan tiro badan aan arkay waxaan idin soo duubay u jeedaan ma sha Allah meesha waa meel xaafad aan caadi ahayn qof walba macnaha oo arka waa xaafad qancinayso ajib gelinayso kuna dhiiranayo inuu dhisto ما شاء الله وأجدان قريانا تهدير على الإسي لكن ولي كرائي وحتى ما نفيرن ولي ما لسودين أجدان لكن سيدو كلام مساجد ماشي كمان مقنا مساجد كان وين كان أستان كنت حافظ دارالسلام سان أقرح ذا بدن ما شاء الله اسمه عادي أهن ويان ورحد وين وكفر ديها سيدو كلام أركي كرتان بيرتا ولقو شاحيو عسري الصبر لوجو باشالو dalkaaga wax ka xiga male meel walba waa ka tagi kartaa hawaayo nin walba wadankiisa wax u dhaama male ma sha Allah barwaaqada Ilaahay noo zaa'idiyo iyo nabada iyo baraaraha
sidoo kale waddankeena wuxuu caan ku yahay casriye ama odayaasha galabta inay iskugu imaadaan ku shaaxiyaan goobaha aad iyo aad u quruxda badan sida arki kartaa maanta qaybta afraad waa ujeedaan sidoo kale waa guryo ayagana isla siman oo isu eg oona kuwii hore ka duwan ka gaawan calaashaan maasha allah aad iyo aad u qurux badan ayagana waa ujeedaan maasha allah roof ah korjigadka ah waa 6 qolo jiifa fadhi iyo qado 3 musqulood iyo jiko barando baakin muuqaalka intaan la dhisin Daarusalaam City project ahaan iyo hadda markii la dhisay sida isugu mid yihiin waa amazing daawasho wacan marka la daawo waa ujeedaan qaaradda guud ee Afrika khaasatan Soomaaliya toos waa kan dhismaha hadda daawanayseen projectorka markii la soo saaray Daarusalaam sana laga rabi is amazing meesha ugu dambayso waa goobtan ay u jeedaan Daarusalaam waa beer aad iyo aad u qalabeysan oo qurux badan oo loo soo daabasho taga maalmaha ciidda waqtiga lagu qaato sidoo kale waa u jeedaa waxaan aad u soo jiishada badan meesha waxyaabo badan oo aad iyo aad ku cajab geliya ku arkaysaa sida goobaha carruurta lagu baashaalsiiyo ku damaashaadaan waa meel qalabeysan oo dhameystiran farxadda Soomaaliya waxyaabahan camal in lagu soo badiyo waddanka aad iyo aad aan u soo dhaweynayna mar walba hadaan nahay shacabweynaha dalka Soomaaliyeed ma sha Allah waxa waaye nin walba waddanka wax ku dhaama ma leh waddanka ku soo laabo waddanka wax ku soo kordhi fikirka sidoo kale beerta haween iyo maalin waa isku si waa u jeedaan haweenka ilaa 3 saac way furan tahay waxyaabo badan oo waddanka oo hore aan lagu arkin sida kale swimming poolkan waa u jeedaan meesha ciyaalka ay ku damaashaadayaan waxa waaye videogeena ma sha Allah aad iyo aad u qurux badan yahay maanta waqti badan waa gelshay ma sha Allah guriyahaas dambe waa guriyo kale ayagana oo block cusub ah waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalkaas quruxda badan u daawateen please haddii muuqaalkan ku qanciyay hakiiloobi like ku soo bir hadaadan ku soo birin subscribe sar channelka gambaleelka furo anna mar walba waxaan u taaganahay inaan idin soo bandhigo ama idin soo gudbiyo muuqaalada ugu quruxda badan caasimadda Muqdisho waddanka daafiisa kale meel walba ka tagan insha Allah waa idin soo gudbin doonaa mar walbana waa idin jecelahay saamicna iyo garab taagantiin please subscribe Audio Jungle.